بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما بعد ساكي waxaan halkan isugu yeernay inaan war-saxaafadeed ama wax shirjah la yiraahdo ku qabanno oo hadlayna xaaladda dalka. Sida la socotaan Soomaaliya markay ka baxday kumeel gaarka oo ay u baxday dawlad buuxda aan kumeel gaar ahayn, dalku wuxuu yeeshay dastuur. Dastuurkaas waxa asaas u ahaa afar qodob oo laga maarmaan u ah mabaadidiisana ay ku dhisan tahay dadka Soomaaliyeed ay ku heshiiyeen. Afartaas oo qodob oo ah dastuurku inuu yahay dastuur federaal ah oo dalku xukunkiisa oo noqdo xukun federaal, nidaamka siyaasiga dalka uu dhaqayana uu yahay nidaam parliamentarian ah, awood qaybsi siyaasadeed in midda saddexaad ayaa ahayd, midda afaraadna waxay doorasho afartii sano mar dhacda. Afartaas qodob ayaa asaas u ahayd dastuurka dadkana ay ku heshiiyeen. qofka loo doorto hoggaanka waxaa waajibkiisa inuu ilaaliyo qodobadaas ayaga ah. waxaa kaloo u sii dheeraa intaas inuu ka shaqeeyo midnimada iyo wadajirka dalka, in uu soo kabo ama soo yareeyo gaabka kalsooni darrada ay u dhexeeya dadka Soomaaliyeed ee colaadda sokeeye ay dhex martay. waxaa kaloo waajibkiisa ah iska caabinta cadowga dowladdiidka ah oo argixisada ay ugu horeyso, iyo sidoo kale inuu ka hortago damac kasta oo ajnabiga la yeelan karo dalkeena uu ka yeelan karo. si marka hogaamiyaha qowlkiisa loo aamino waa inay qowlkiisa iyo ficilkiisa is yeeshaan, kasbadana kalsoonida shacabka iyo ammaanada dadka ay ku qabaan, kana fogaada eexda, musuqmaasuqa iyo qaraabakiilka iyo wax kasta oo keenaya dadku inay ka aamin baxaan dowladnimada. maanta dowladda dalka ka talisaa waxay caan ku tahay eex, musuq, karti xumo iyo hal abuur la'aan intaba. ood arkaysaan in uu ka dhammaaday kartidii waxqabad iyo hal abuurkiiba uu ka noqday mid ay ka maran tahay. horey dalka waxaa u maqnaa oo dhammaanteen baadigoobeyni Somaliland. waxaad ogtihiin mar dhexe waxaa ka booday tareenka Puntland, saakina waxaa ka maqan Jubbaland. waxaa isweydiin leh inta soo hartay, horena waa u sheegnay wadada qardajeexa ee lagu socdaa inay saas ay ku dhammaan doonto. waxaa isweydiin leh oo yaa isku soo haray marka oo Soomaali ayaheedii ka tashanaya, mahal qoys ayaa isku soo haraya. haddaad aragto sida hadda waxay yihiin waa Muqdisho iyo waxaa isku soo haray Hirshabeelle iyo Galmudug iyo Koonfur Galbeed ayaa isku soo haray. man baan kula kaftama waxaan ku yiri reer Koonfur Galbeed reer wasaaraha la siiyo, haddaa inteena isku soo harnay annagii ayaga isku soo harnay aw dalkii intiisii kale waa ayaan darri weyn. horey uga dignay in jidkaas qardajeexa ah meesha uu ku dhammaado la yaqaano. horena waa u soo aragnay, loo jooji maayo, qof loo istaagayo ma jirto, horaa loo soconaya, qof warkiisa lama arko. halka jidkaas uu ku dambeeyey qofka ugu khibrad badanna waa madaxweyne xasan sheekh, jidkaas meesha uu ku dhammaado qof ugu khibrad badan ma jirto. waxaa yandara ah gudoomiyaha baarlamaanka Sheekh Madoobe hore baarlamaanka gudoomiye uga soo noqday, gudoomiye Cabdi Xaashiyo hore aqalka sare uga soo noqday, gudoomiye aqalka sare iyo madaxweyne hore dalka u soo xukumay oo saddex nin oo odaya 70 kiilo fooda sii gelinay, qaarkood ay dhaafeen. dadka Soomaaliyeed inay ka filayeen way aragnimo iyo khibrad inay uga faa'iideeyaan, dadka ay isku doonaan inay saaka isku bahaystaan sharci darro. wad ogtihiin maanta baarlamaankeenii inuu si xaaraan ah ku wada fadhiyo, oo sidaad ogtihiin golaha sare ama aqalka sare waxaa loogu talagalay in uu turxaan bixiyo ama jeegareeyo sharciyada soo mara aqalka golaha shacabka ah. maanta waxay joogtaa in labada gole ay wada fadhiyaan, guddi midaysan ay leeyihiin. labada gole waxay wada fadhiisan karaan oo keliya markay dastuurka dib u eegayaan iyo markay madaxweynaha dooranayaan. ayagaa waxay ku heshiiyeen dhexdooda oo xajajar ay ku gaareen inay miisaaniyaddani isla fiiriyaan, laakiin sabab kale ay ku wada fadhiisan karaan ma jirto. waxaad ogtihiin markii la keenay sharciyada saddexda ee hadda maanta loo fadhiyo oo sida xaaraanta ah loogu fadhiyo, oo sharciga xisbiyada iyo ka lagu dhisayo guddiga doorashooyinka iyo sharciga axsaabta siyaasadeed intaba iyo midka doorashooyinka intaba in la yiri labadii aqalhooda fadhiistaan. su-aashu waxay tahay oo yaa turxaan bixinaya oo jeegareynaya waxa aqalka hoose ama golaha shacabka uu soo sameeyo. waxa saas sameynaya waa rag odayaal ah oo dadku Soomaali ay ku aamineen inay khibrad iyo aragnimo hore u soo xukumeen ay leeyihiin. dadka Soomaaliyeed ma qaldami jirin, qof ay tala siiyaan marka laguma celin jirin, laakiin markaa saddexdaba waa u qaldameen. waxaan filayaa inay shalay ka joogaan. waxaan rabaa inaan dul istaago arrinta Jubbaland. waa Jubbaland waa arrin ay u soo noqotay
madaxweyne xasan markii ay doortana way la kowsatay maantana way la jirtaa waxaa su-aasha isweydiinta leh waxaa maalmahan aad loo soo celceliyaa warbaahintana aad la socotaan idinkaa warbaahintii ah khudbooyinkii ay jeedi jireen madaxweyne xasan sheekh iyo ra-iisul wasaare hadda jira xamse cabdi barre ay ku difaacayeen maamulka jubbaland iyo doorashadiisa oo dhammaanteen baan ku difaacaynaba waxaan difaacaynana waxay ahayd wax ku qoran dastuurka dalka oo ah qodobadiisa 120aad 121 142 oo madax banaani u siinaya dowlad goboleedka ayaga inay doorashadeeda qabsato sida ay u qabsanaysa ma si xalaal aha ma si sax aha ma si dah furan aha taas dowladda federaalka way ku qabsan kartaa dowlad goboleedka laakiin inay dowlad goboleedka doorashada ayaga qabsanayso oo baarlamaankeeda sharciga doorashada dowlad goboleedka uu soo saarayo har noqoto heer dowlad goboleed ama heer dowlad degmooyinka ahaato ama oo magacaabayo madaxweynaha deegaankaas guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka waxay ku qoran tahay dastuurka federaalka iyo dastuurka dowlad goboleed kastay ku qoran tahay warqadii shalay soo baxday aragteen wasaaradda arrimaha gudaha soo dhex martay oo aan hayst in la soo marsiiyay ka soo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha ama madaxtooyada ka timid ayaan darada ku qoranay waxay ahayd warqad la leeyahay axmed madoobe balanna nooga baxay axmed madoobe sharci darro ku taagnaa 2023 ka dhamaatay oo sharci darro ku taagnaa oo annagaa siinay waqti uu iska sii joogayo xaggee ku taalaa inay madaxda dowladda federaalka ah dowlad goboleed mandate sii karto waxaan la yaabanahay saddexda dowlad goboleed ee hadda la jira madaxweyne xasan sheekh waxaa ogaatiin warqadda waxa ku qornay waxay ahayd aniga mandate-ka ah in siiyaa ku joogtaan markaan rabaan in kala noqon karaa sida hadda axmed madoobe wala noqdo kale axmed madoobe intaas uu fahmay wuxuu fahmay meeshaan in taxta raxmata xasan sheekh naxariista xasan sheekh iyo mandate-ka xasan sheekh asaga uu ku siiyo in meesha lagu joogo sidii dalka inuu yahay dal unitary ah oo dowladda dhexe maamusho oo dadkaan gafartoorayaal dowladda ay mandate-ka siinaysa ay yihiin intaas buu diiday dastuurka jubbaland markaa ka qayb galaynay cala masaarkii hore madaxweyne xasan sheekh si fiican u xasuustaa axmed madoobe qodobka 86 waxaa la daliishanayay dastuurka jubbaland ee madax banaani u siinaya doorashada inay jubbaland qabsato iyo qodobada kale dastuurka federaalka ee aan sheegay 120 121 142 ma dastuurkiyaas bedelay maya waa sidiisii kii jubbaland isoo bedelay kii federaalka isoo bedelay damaca madaxweyne xasan sheekh baa isbedelay shaana dantiisa ku jirta in axmed madoobe taageero maanta dantiisa ayaa ku jirta inuu ka hor yimaado dalka ma yahay marka mal damac shakhsi ah lagu wadi karo oo aniga maanta danteeda meeshay ku jirto yaan wadaya ra-iisul wasaare xamse waa xasuusataan waa dhegeysateen soo difaacaya maamulka jubbaland iyo doorashada inay qabsan karaan oo qof soo dhawaan karta aysan jirinin oo sharciga iyo dastuurka akhrinaya oo sharciga iyo dastuur goorma isbedel ra-iisul wasaare goorma isbedel soo kii uma aad doorashada ku qabanaysay oo axmed ku qabanaysay goorma sharciga isbedelay maxaa isbedel dantaada isbedeshay adaa dan yeeshay shalay axmed ku dan lahayd maantana xasan sheekh baa ku dan tahay intaas kaliya baa dhacday wax kale isbedelay ma jiraan waxaa marka wax laga yaabaa in naloo akhrinayo maanta in waxa ka socda jubbaland ay yihiin wax qaldan ma aha wax qaldan ma aha jubbaland waa dowlad goboleed inay ayaga qabsato doorashadeeda xaq u leh ayaga inay qabsato maamulkeeda xaq u leh waa lagula qabsan karaa siday doorashada u qabanayso si saxa oo xor oo xalaala ma tahay taas doo taagan waaye ciddii ku qabsanaysaana anaga ka celimayno laakiin in la yidhaahdo iska joog muddo korosi ila raac aniga si aana muddada u korosado mar kastoo madaxweyne ama si gaar isku arnama si badli ula hadlaba wuxuu ku celceliyaa aniga ma rabo aniga muddo koros oo maxaa muddada u korinaysaa dowlad goboleed hadda jira hadda adigu rabin xageed u socotaa waxa u socotaa waa muddo korosi waxaan usoo gudbaya arrinta musuqmaasuqa kaasatan dhulka dadweynaha si ay la socotaan maalin kasta dad masaakiin ayaa la barakiciya waxaa arkaysaan arday iskoolaya oo subaxii inta ka kala guryaheedii xaafadda iskoolkii markay ka soo noqdeen guryaheedii duunsan tegey waxaa la socotaan waxa maanta la isku haystaa ugu dambe inay yihiin dhulkii jaamacadda ummadda oo la leeyahay annagaa iskale waa ayaan darro weyn hantidii dowladda mid ayaa loo iibiyaa sharci kasta oo dowladda Soomaaliyeed waxa u yaala sharci ku saabsan hantideeda si uu iibinayso sharciga ka yaala dowladdu hanti waa iibi kartaa laakiin sharciga ka yaala sharcigaas cid ku dhaqanta lama arko oo dhinac mara sharcigaas wuxuu nuxurkiisa yahay in horta la cadeeyo dowladdu inay ka maarantay hantideeda wakaalad wasaarad qolobay tahayba hay'ad kale madax bannaan dhulka ay leedahay waa inay ay sheegtaa inay ka maarantay markay sheegto inay ka maarantay waa in la naadiyaha la weydiiyaa haddii hay'ad kale dowladeed ay jirto u baahan
dhulkaas ayada ah ama hantidaas ayada ah markii la waayo wasaaradda maaliyadda waxay samaysaa mazaad calin ama auction wax la yiraahdo marka hore way qiimeysaa dhulka intuu ku fadhiyo qiimeynta saxda markay keentay mazaad calin ama auction ama suuqay dhigtaaho way beecisaa waa loo tartamaa si furan qofkii ku soo guuleystaa oo lacagta ugu fiican ee wasaaradda markaas ka keeni karta ka keento ka bacdiya waxaa la geliyaa lacagtaas waxaa lagu shubaa qasnada dowladda lagu shubaa ka bacdiya hanti dhowraha waxaa loo geeyaa processkii la maray ka bacdi wuxuu ka saaraa hantidaas qaranka midka diiwaanka qaranka ka saaraa oo wuxuu ka dhigaa hanti gaar loo leeyahay waxaasoo dhan hadda lama maro madaxtooyada tagaysaa madaxweynaha la gorgortamaysaa lacagta asaa u shubaysaa asaa kaa qaadanaya full stop saas dal ma lagu dhaqi karaa su-aasha taagan oo maxaa loo imaanaya haddii wasaaradihii iyo wakaaladihii iyo hay-adihii dhulkii la wada iibiyo dhan xaggeen beri wasaarada iyo ka dhisanaynaa hay-ado iyo wakaalado waxaa kaaga daran jaab shaksiga ku dhacaysaa miisaaniyadii dalka naloo keeno kuma jirto xaggee aadda lacagtii la yidhi dadka hantidooda lagu soo iibiye xaggee aad xaggee la geeyey waa wax hantida ummadda soomaalida iskale hantidan anigana mali madaxweynahana male ra-isul wasaaraha male xukuumadna male waa ayaan daro inteeda la eg in maalin kasta dad masaakiina la barakicinayo waxaa la ii sheegay in wasiirada kamida uu yiri waa iscasilayaa haddii dhulka ay leedahay wasaaradeyda la iibiyo oo ku goodiyo inuu iscasilayo waa ku mahadsan hadduu warkaas sax tahay oo wasiir aan leenahay damiiraan leedahay wasiiradii markay arkeen in madaxweynihii dhulkii hantidii qaranka iibsanayo isaga uu iibinayo ayagana wax alaalo wixii ka gaaraan inay qaataan noqotay war dowladdii dhammeed waxay noqotay xaggee wax ku jiraan intee manfac yaallaa xaggee shilin laga helaa kii askari ah kii sargaal ah kii agaasimo ah kii taliyo ah kii meel jooga kulli waxay iska noqotay xaggee dhacdhaca ku jira oo wax ka raadiyaa xaggee isbaarada dhigi karaa waxay ka duwan tahay 95 iyo 6 markaan magaaladan joognay oo weelka u yaaleen isbaarooyinkii lacagta ku daldalanayeen oo sharci ah kaliya hadda taala meel kasta waxaa la samaystay kambani la yiraahdo kambaniga khidmadaadka wax kasta khidmad kor saaran tayadowr fayadowr kan dowr cali dowr wixii dhammaan waxaa laga dhigay kambaniyaal wada qandaraas miran ah cashuurtii kambaniga qaadaya tii guryaha tii jidka qof walba kambani dalkii dhammaan wuxuu noqday dad la profitaas gareeyay oo laga dhigay in dad gaar hantidii ay qaadaan taas maxay keentay marka oo xaqiiqo ah waxay keentay in dadkii maalgashiga ay dalka la baxaan sanadkii la soo dhaafay kaliya 4 bilyan Soomaaliya laga baxay oo dadka hantiilayaasha Soomaaliya ay kala baxeen 4 bilyan US dollar oo ay dibadda ku maalgashteen sababtoo ah waxay ogaadeen inay lacagtooda hab u dhanay dalka gudihiisa markii mid canshuur kula taagan yahay dheeraad ah markuu mid kula taagan yahay baad ka rabo markuu mid kula yahay khidmad wata kambani hebelan ah markuu kula yahay mid saasan ah war waxaan ay mid kambaniyaal leeyahay hadda dawladda lacag shubeysan inta la shubeysaa haddaad private company ku shubaysaan intaana shubaysaa waddanka maxaa u dhaqan oo dadka maxaa u yaalla suuragal ma aha dal inuu saan ku sii soco karo suuragal ma aha waxaa la yidhaahdaa burkaanayaasha sayniska ah kuwa geologiyada iyo qarax dhaca dadka cilmiga sayniska yaqaana way sii ogaadaan burkaanaha markuu dhacayo way sii ogaadaan saynisku waa lagu ogaan karaa laakiin burkaanaha bulshada lama ogaado waxaad arkaysaa asoo qarxay oo dadkii hal mar ay kaceen waa sida ku dhacday 2016 qaqabayaasha dagaal ku dhacday waay hal maalin ay safiinaynin in shacabka hor imaanayo war dadkii aan dheersanin war nimankiina guryaha ku xiran madaxda dadka ha dheersanina dadka hadda culays ku badisaan oo baada ku badisaan oo dhibaatada ku badisaan oo hoos ugu sii dagayeen waxa ay ku sugan aadanka warqabinina waxa imaanayso in ay dadku marka dambe qarxaan oo ay noqdaan dad aan la filan karin wax ka imaanayo waana culayska dariskeena ka dhacday waa Kenya janziga waa arkayseen inuu madaxweynuhu waashay xukuumadda bedel miisaaniyadii ka noqo cashuurtii yaray wax kasta uu sameeyay wuxuu ku qasbanaaday dadka soo kacay inuu raali geliyo dadka Soomaaliyeed waxaan u baaqaynaa wax garadkiisa al-hal wal aqdiga culimada aqoonyahanka bulshada rayidka waan ku hogaaminaynaa inaan dulmiga iska qaadno horena waan ku hogaaminay qof aan dulmi ka yeelayna ma jirto qof inay dadka maxbuus u ahaadaan oo hostage u noqdaan oo baado aan ka yeelayna ma jirto qof hantideed qaranka inuu ku takrifay aan ka yeelayna ma jirto musuq iyo iyo qaraabakiin iyo karti la'aan iyo hal amir la'aan wixii un baa lagu soo celcelinayaa dadka waa yaaban yihiin intii hore loo sameeyay unba oo maxaad xukunka u raadinaysay
ونكي فريقك عسني صدق حسن وسمايا سميني زادي وسقار ده حتى يلبو سميني وكل يتسدي وكوبي كوبي 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 فرح ولبا وحاس وحدد لو دقي كرو وما لو هوغامي كرنا maaha dadka Soomaaliya anaga waxaan diyaar u nahay awla naftaan u horno halis u gashayba inta soo jeer naftaan halis u gashay inaan dulmiga ka hortagno dulmiga sidii u baa hortagayna ma yeeli doon waxaan yeelayna muddo kororsi waxaan yeelayna dadka hantiyo in la dhaco waxaan yeelayna maaragtay in dadka lagu takarfal awoodooda waxaan u baaqayaa kuwa ganacsada sheeganaya ee maalin kasta hantida dadweynaha daba jooga ee lacagta ka dhiibaya dad la qixinayo dan yar oo masaakiin ah lacagta ka dhiibaya ee isku falisaya ee ilaahay hantida siiyay oo iimaanka uu ka qaaday oo dadka masaakiinta oo danyarta u naxaynin ilaahayna ka cabsada iska daaya dadka danyarta oo daacsanaysaan oo lacag daraahina baqsin hantidii dowladda ku qaadanaysaan waa la iskaga damaanayaa bari waa lagu xisaabtamaya gandiya waxaa laga sheegay ninkii filasuufka hindida ahaa ayaa waxaa laga sheegay waxa ilaahay dhulka korkiisa keenay dadka dhan way deeqaan laakiin in yar deeqina jirto dadka iimaanka hadii ilaahay ka qaado waxa hantida dhulka saaran dhan deeqaan ويعدي إن آدم واديان من ذهب النبي عليه الصلاة والسلام لارتقى ثالثا هذه لو هي ذهب لسي مثل حل هذنا ولم يملأ فاه إلا التراب أفكي سعيد لي بحكرت والإيمان كان يقرأ ضرنا يونا نقالنا كان عسطاو مغاليان جو وما لك استقبل ظل لك عناء بلتاقن والله إنك عبصدا هذا مساكين تا هذا يحتري كريم ولا حقوق بكريم هنتي ذا وقال هذا وحنا ما هي مدعوين الوقت يراكو هاري سند يبر ياكو هاري مدة ترسي هذا dhibaatada maanta dalka jirta mid askeen la tiri karto maaha waa mid dadkii ku sheegay dhigaha ka xiratay xafiisyada ka xiratay indhaha ka xiratay dalkaana ma aha dal hal qof oo kaligiis garaadkiisa lagu maamuli karo maaha abaan baa waxa laga sheegay sidaan garanayo uunba lagu gaarayaa qaran garashada kaskeyga lagu hanan karaa guul haddii arrintu saasay ka tahay waa ayaan daro garashada kaskaagana guul lama haga karo garaadkaagana qaran laguma gaari karo madaxweynuhu waxaan ku leenahay talada dhulka iska dhig waa kugu celinayna waa kugu leenahay haddaa diido dadka Soomaaliyeed iyo anaga wada jirno waa iska ka qabanaynaa dulmigana yeeli mayno horaan u diidnay ku adika horeyaan ka diidnay Soomaaliya kuwa ka sii horeeyay ka diiday dulan lama yeelaayo waan diidnay dadka Soomaaliyeed way nala diidayaan boqolkiiba boqolan aaminsanahay haddii uusan madaxweynaha ku sii socdane intii aan samay jirnay oo abaabulkii dadka iyo maaragtay isku duwii dadka iyo mudaharaadkii iyo ka hortagii dulmigiisa iyo kicintii iyo intii un baan diyaar la nahay nafteena inaan miiska saarno waana la xabadeynayay waana soo weerarayay in la diyaar isku dayayo danna kama lahayn meeshii un baan taaganahay dulmidiidka ahaa saasaana ilaahay idinkiisa dowraado aan dulmi u diidan doonaa waa maasantiin. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.